haddaba haddii aad leedahay caadooyinkan ogow waxay halis ku yihiin amaba ay burburiyaan caafimaadka maskaxdaada. dabcan haa waad i daawanaysaa falowii soo dheh sidoo kale muuqaalkana laagsaar say dad badan u gaaro. mahadsanid. soo jeedka badan habeenkii, dhafarka amaba samaleelka badan habeenkii waxay dhaawacaan amaba ay burburiyaan caafimaadka maskaxdaada, waxayna hoos u dhigaan garaadka amaba xasuusta qofka. sidoo kale isticmaalka maandooriyaha amaba muqaadaraadka sida shiishada, sigaarka, qaadka iyo guud ahaan maandooriyaha waxay dhaawacaan amaba ay burburiyaan caafimaadka maskaxdaada. stresska, diiqadda, niyijabka, walwalka waxay hoos u dhigaan xusuusta iyo garashada qofka. sidoo kale waxay keenaan inay yaraato qaybta maskaxda u qaabilsan ogaalka iyo barashada. sidoo kale kelinoolaanshaha ama inaad jeclaysatid amaba caado aad ka dhigato inaad ka dhex baxdid bulshada, gaar ahaan asxaabtaada, xubnaha qoyska, waxay keenaan amaba ay dhaawacaan maskaxda oo waxay keenaan walwalka iyo stresska iyo niyijabka. ugu dambayn, haddii aad leedahay caadooyinka aan soo sheegay, waxaan kula tani lahay in aad iska joojisid. aan su'aal ku weydiiye, dabeecadaha ama caadooyinka aan soo sheegay ma leedahay mid ka mid ah? oo haddii aad leedahay qaybta hoose commentiga igula wadaag. fadlan youtube channelkayga soo booq, waxaa soo geli doonaa talooyin caafimaad oo ku saabsan ramadaanka.